haddii aad tahay gabar guurdoon ama ku fakari lahayd in iskuul aad u gasho barashada waxyaabaha dhidibada u taaga ama u adkeeya dhismaha qoyska haddaba arrintaasi waxa uu istaagay iskuulka qoyskaab ee magaalada Hargeysa ku yaal wariyaha BBC-da Maxamuud Cali Maxamed oo booqday iskuulkaasi ayaa warbixintan nooga soo diray halkani waa iskuulka qoyskaab oo ku yaala magaalada Hargeysa macalimada Nada Yuusuf Cumar ayaa waxa ay bixinaysaa mid ka mid ah cashirada halkani lagu baro gabdhaha doonaya inay wax ka fahmaan guurka guri qurux badan guri degan cashirkani waxa ay diiradda ku saaraysaa tiirarka muhiimka ee loo baahan yahay in la helo si loo gaaro guur lagu iliibano waxay ugu qaaday markaan arkay dhibaatada mujtamaceena haysta waxaan barnaa haddii habla yihiin sida nolosha guurka loo fahmo marka hore waa maxay guur muxuu guurku u qaybsamaa maxaad u guursanaysaa ujeedadaad u guursanaysaa waa maxay hadduu dhibaato timaado ama khilaaf yimaado sidee baa loo xalinayaa inkastoo hablaha ka qaybgalaya cashirkan yihiin kuwa ay tiradoodu aad u kooban tahay haddana waxay si aad dhagta ugu taagayaan tafaasiisha mararka qaarna su'aalo ayay weydiinayaan macalimadda waxay ugu qaaday arrimaha qoyska ama iskuulka qoyska lagu baranayo guurka waxay ugu qaaday maadaama guurku leeyahay ahamiyad aad u weyn inaan bartaa waa muhiim bay noqotay kuwa gacanta waxa kamid ah cuntada marka laga soo tago cashirada fasalka iskuulka waxa sidoo kale ardayda lagu baraa cunno karinta oo iyadu loo aqoonsaday inay ka mid tahay xirfadaha loo baahan yahay in lagu kabo hablaha jacaylka iyo isku xirnaanshaha ma keenaysaa qasab si rag waad cuntada u jecel yihiin iyo qoyska wanaagsan iyo cuntada wanaagsan marka gabadha hadii cuntada hagaajisato ninkeedu ma naqaaya bayrata waxaan rabaa wallahi ni fiican in aad u wanaagsan diinta ku wanaagsan dhaqanka ku wanaagsan akhlaaqda ku wanaagsan jacaylka wax ka yaqaan guurka waa wax qof kasta uu u baahan yahay kuna haminayo arrintanna waxa suurtagal ah inay sabab u noqoto in ay baajiso burburka qoysaska laakiinse weli lama bilaabin iskuul ragga lagu baro arrimaha guurka